markii ugu horeysay suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa codsaday in lala hadalsiiyo ugaaska guud ee beesha Ciise si loo soo afjaro dagaalada ka qarxay xadka Somaliland iyo sidoo kale Itoobiya tan ma waxay ka dhigan tahay inay beesha Ciise guuleysatay beesha taagta daran ee Samaroon ay isdhiibtay waxaan ku soo gudbin doonaa xog walba oo aad uga baahneed codsiga la yaab kale ee uu diray suldaanka guud ee beesha Samaroon sidoo kale qodobada kale aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona maxaabiis horle oo la sheegay inay u gacan galeen ciidanka beesha Ciise dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Awdal xilli dambe aaga magaalada Diridhabe waxa la geeyay laba maxbuus oo la sheegay in dagaalo lagu qabtay oo beesha Samaroon u dhashay waan ku soo gudbin doonaa iyadana waxaan kale ku soo gudbin doonaa kulamo amniga looga hadlayo oo isdaba joog ah oo dhexmaray garaadada maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Jibriil iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari hadaba kulamadaasi maxay ku saabsanaayeen macluumaadka ayaan ku siinayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin qaada dhigi doonaa ee soo dhawaada haddii tahay markii kugu horeysayna ku soo biir warbaahinta Daraja Media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga noogu reeb dhammaystiran oo ku aadan in ugaaska guud ee beesha Ciise uu iska diiday in uu la hadlo suldaanka beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi wararka la helaya waxay tilmaamayaan in suldaanka beesha Gudubirsi uu codsaday in la soo afjaro colaada gobolka Awdal isagoo markan garowsaday ama ogaaday in dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka si weyn loogu laayay ciidamo ka tirsan kuwa beesha Samaroon beesha taagta daran ee Samaroon ayaa la soo warinayaa inay guul darro xoogan kala kulantay beesha faca weyn ee Ciise taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in markii horeba gardarro ay ku socotay beesha itaalta daran ee Samaroon dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Durdur deegaanka Xariirka magaalada Cali Xood iyo deegaano kale waxaa la soo warinayaa in libintu ay ahayd beesha faca weyn ee Ciise halka dharbaaxooyin isxiiga lagu dhuftay ayaa la leeyahay beesha taagta daran ee Samaroon maadaama laga qabsaday gaadiid maxaabiis rag badan laga laayay wada hadal telefoon oo la sheegay inuu dhex maray ugaas Cabdirashiid Doodi iyo sidoo kale mid kamida odayaasha dhaqanka beesha Ciise waliba kuwa u dhow ugaaska guud ee beesha Ciise xurmadle Mustafa Maxamed Ibrahim ayaa la soo warinayaa in la isla qaatay in marka ugu horeysa beesha Samaroon ay ogolaato in xeerka buugga Ciise la soo bandhigo raaligelin ay ka bixiyeen aflagaadadii loo geystay xurmadle Mustafa Maxamed Ibrahim iyo in sidaas la mid ah wixii inta ka dambeeyana la wada hadli doono xaaladdu markii halka joogto ayaa la sheegay in ugaaska guud ee beesha Ciise uu markii dambe yiri maba jiri doonto wax wada hadal ah oo aan la yeelanayo cid walba oo lagu tuhmayo ama la isleeyahay way ka dambaysaa colaadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka oo ay dad badan aaminsan yihiin in ay ahayd mid sababtay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka maamulka Ciise waxay tilmaameen in bilihii la soo dhaafay si weyn ay arrin sidaas la mid ah toddobaadadii la soo dhaafay xiisadu waxay ahayd misreysa iyadoo oo marka ka dambaysa la arkayay in beesha Ciise ay helayso hub halka beesha Samaroon sidaas la mid ah iyana ay hub helayso laakiin markaad isku soo ururisay labada dhinacba waxay ku tusinaysaa xaaladdu in labada dhinac ay si aad ah isku hubeeyeen lamana yaqaan xilligan waxa ku kalifay beesha taagta daran ee Samaroon in ay yiraahdaan wada hadal ayaan rabnaa markii aad diidayseen xeerka buugga Ciise maxaa wada hadal u yeeli weydeen markii aad lahaydeen ciidanka Soomaaliland hanoo soo gurmadaan Samaroon oo maxaad war u yeeli weydeen iyo erayo kale ayuu yiri ugaaska guud ee beesha Ciise xurmadle Mustafa Maxamed Ibrahim oo aan moodid inuu si weyn u diidanaa habdhaqanka liita ee beesha taagta daran ee Samaroon kaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in ay ahayd waxa kaliya ee laga filayay beesha Samaroon inay marka hore nabad qaadato ka hor intuusan dagaal ku dhicin haddaba waxaan isbarbardhig yar ku samayn doonaa tayada ciidanka beesha faca weyn ee Ciise iyo kuwa Samaroon yaa awood badan yaa deegaano fara badan hadda haysta tan iyo markii uu bilowday dabcan dagaalka u dhaxeeya beesha Ciise iyo sidoo kale beesha Samaroon deegaano fara badan ayaa la kala qabsaday gaadiid dagaal ayaa la iska gubay dhimasho iyo dhaawac ayaa jirtay maxaabiisna waa la kala qabsaday ilaa hadda inta la xasuusto Samaroon kuma hayaan hal nin oo u dhashay beesha faca weyn ee Ciise sidaas la mid ah Samaroonka waxa laga hayaa 3 meela 2 meela iyo 1 meela dhammaan raggaasi waxa la sheegay in la geeyay magaalada Diridhabe
oo xabsi qoorta loo geliyey ilaa inta ay ka bislaanayaanna halka ay ku jiri doonaan. warar soo baxay waxay tilmaamayaan in sidoo kale dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Durdur iyo sidoo kale magaalada Bolol inta u dhaxaysa ilaa Xariirka lagu qabtay gaadiid dagaal. gaadiidka dagaal markii la fiiriyey sumadooda oo dib u eegis lagu sameeyana waxaa la ogaaday in gaadiidkan ay ahaayeen kuwa ay si gaar ah u isticmaali jireen ciidanka Somaliland, taasoo dabcan ku tusinaysa in ciidanka Somaliland dagaalka ay toos ugu soo biireen oo ay ku lug lahaayeen kana qayb qaateen dagaalo dhex maray Samaroonka iyo Ciise. tan dabcan haddii ay sax noqoto oo warkan aan idin sheegayo Somaliland ay qirato oo ay tiraahdo ciidamadayada ayaa si qaldan dagaalka u galay si heshiis loo gaaro, waa dharbaxo xoogan oo ku dhacay Somaliland oo ku aadan in Ciro iyo taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug aysan raalli ka ahayn in colaadda la soo gabagabeeyo. waxay ku soo kordhay qodobkaas wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaaye markana qodobadeena kale. 48 saac ee la soo dhaafay si weyn ayaa loo dareemayaa in boqolaal ciidamo ah oo rag ah oo hubeysan oo dagaalyahano ah beesha Ciisana u dhashay ay ka soo tallaabeen dhinaca Itoobiya oo ay soo galeen dhinacaas iyo gobolka Awdal. dabcan ciisihii ku sugnaa Djibouti iyo ciisihii ku sugnaa Itoobiya iyo midkii Somaliland ku sugnaa ayaa dabcan isku yimid, waxayna rabaan in la soo qabtaba oo gacanta lagu soo dhigo ninka la yiraahdo Cabdirashiid Doodi oo ah sargaalka ama odayga ugu sareeya beesha la yiraahdo Samaroon ee saldhigooda uu yahay magaalada Boorama. qorshuhu waxa waaye maadaama hadda deegaanadii lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan beesha Facaweyn ee Ciise in deegaano hor la qabsado oo la taga xataa magaalada Boorama. hadda meelaha lagu dagaalamayo waa dhul hawd ah ama dhul buura ah, laakiin in la iskala tago oo la tago magaalada la yiraahdo Boorama ama magaalada la yiraahdo Saylac ayuu yahay qorshuhu sida hadda wararku tilmaamayaan. waxaa sidaas la mid jirta aragti kale oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah dad Soomaaliyeed oo dhexdhexaad ka arrimahan kuwaasoo ku talinaya in si hoose oo walaaltinimo ah odaytinimo ah is-ixtiraam leh loo soo gabagabeeyo colaadda oo aysan colaaddu noqon mid si daba dheeraata. qof walba yacni haddii colaadan ay dhacdo ama colaadan ay daba jiidatana dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan cidnadan ugu jirin oo dagaalku uu halkeeda ka sii socon doono. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro isagu uu ku guul daraystay in uu xal ka gaaro ama uu xal u helo colaadda halka ka taagan. dadka arrimaha la socdana waxay leeyihiin Cabdiraxmaan Ciro waxay ahayd inuu wax badan xeeriyo oo uu hatta isku keeno ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim iyo suldaanka guud ee beesha Gudubirsi Suldaan Cabdirashiid Doodi. markaa kadibna ay wada hadlaan oo la isla meel dhigo waxyaabaha dabcan la isku hayo. dad badan marka waxay aaminsan yihiin dabcan in waxyaabaha hadda isku hayaan Samaroonka iyo Ciisuhu dhul uu ka weyn yahay oo Somaliland xataa dagaalka ay wax ka hurinayso. marka waa in Somaliland laftirkeeda loo caqli celiyo oo la yiraahdo colaadan aad hurinaysaan ma ahan wax xal uu kugu jiro, waa in si degdeg ah loo joojiyaa isla markaana la soo afjaro colaada. halka warar kale iyo macluumaad kale ay leeyihiin beesha reer Sheekh Isxaaq dagaalkan daacad kama oo waxay rabtaa in madaxa la isku geliyo beelaha kale ee wadaaga ah walaalaha ah ee halkaasi wada dega oo ay dad badan aaminsan yihiin inaysan kala maarmin wax badanna ay iskaga xiran yihiin. sidaas la mida saraakiil aan la hadalnay oo ciidamada Itoobiya waxay leeyihiin anagu ma faragelinayno arinta Somaliland, waxaa laga rabaa madaxda Soomaalidu in iyagu ay isxaliyaan, dadka Soomaaliyeed in iyagu isxaliyaan oo wada hadal lagu dhameeyo. qodobkan ugu dambeeyana daawadayaal aan soo qabtay ee dhowr iyo 20 saac la soo dhaafay magaalada Laascaano waxaa ka dhacay kulamo gaargaar ah oo dhex maray inta badan saraakiisha ciidanka maamulka Waqooyi Bari iyo garaadada maamulkaasi. kulanka oo inta badan warbaahintu ay dibajoog ka ahayd ayaa la soo wirinayaa in diiradda lagu saaray dhowr qodob oo arrimaha amnigu ay ugu weyn tahay: qabashada Ceergaabo, sugitaanka amniga magaalada Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada, iyo in la burburiyo shabakado raba inay qalqal galiyaan amniga magaalada Laascaanood ayaa dabcan si weyn loo faaqiday oo looga wada hadlay. taliya Cabdi Madoobe oo uu weheliyo madaxweyne Cabdiqaadir Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa ayaa tagay guriga uu Laascaano ka degan yahay garaadka guud ee beesha Jaamac Siyaad, garaad Jaamac, garaad Ismaaciil, iyadoo kulanka intuu uu socdeen la sheegay la isku soo hadal qaaday in la qaado
qodobo dhowr ah ama tallaabooyin dhowr ah oo lagu burburinayo shabakado isku xiran kuwaasoo raba inay qalqalgeliyaan amniga iyo xasiloonida magaalada laascaanood ka jirta. dad kale waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in la soo afjaro koox dhanka Puntland ka timid oo rabta in ay sumcad disho maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada laascaanood, kuwaasoo dabcan xilligan raba in ay ka taqalusaan cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay xasiloonida iyo nabadda heerkeedu sarreeya ee ka jirta magaalada la yiraahdo laascaanood oo ka tirsan gobolka Sool. gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. haddii tahay markii kugu horeysay ku soo biiri daraja media, waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno. aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb. soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaana. subax wanaagsan.